injineer cabdirasaaq maxamed faarax cabdi wiiwa oo ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ee ka sharaxan xisbiga wadani ayaa kulan la qaatay dadweynaha ku dhaqan xaafadda Digaale ee Maxamed Mooge kormeerka musharaxa ayaa daaranaa sidii uu xogogaal ugu noqon lahaa xaaladda iyo baahiyaha ka jira xaafadda Digaale bulshada ku dhaqan Digaale ayaa musharaxu markii uu halkaasi gaaray si diiran u soo dhaweeyay waxaana uu musharaxu halkaasi kula kulmay odayaasha dhalinyarada haweenka iyo bulshada halkaasi ku nool qaybaheeda kala duwan iyagoo uga waramay duruufaha ka jira xaafadda Digaale kuwaas oo ay ugu horeeyaan dhanka wadooyinka iyo biyaha waxayna musharaxa u ballan qaadeen in ay codkooda siin doonaan hadii arrimahaasi uu wax ka qabto annagu waxaanu idin keenay xildhibaankii maanta mustaqbalkiina wixii ay u baahantiin ilaahay baa waxaye wixii ay u baahantiin idin qaban lahaa waxaanu idin wadnaa aqoonyahan la iska soo xulay oo dadku deynta isu tageen laga fiirsaday baanu idin wadnaa ma wadno xildhibaanunigeedii ma wadno waa ninkii Washington soo dhisay Dubai soo dhisay Imaaraadka soo dhisay waa nin aqoon u leh waxa u baahantiin biyaha iskuulka waxbarashada caafimaadka intaba waxbuu idin kala qabanaya hadii ilaahay yiraahdo waxaanu idin leenahay maanta hadaa ciduun codka siin lahaydeen siiyay injineerka cabdirasaaq maxamed haddii aanu nahay degmadan Digaale waxaanu u baahannahay anagu waxaanu u baahannahay in wax qabad weyn baanu u baahannahay oo ay ugu horeyso wadadaas xildhibaanka kulliba sida waa la soo saarayaa codka waa la siinayaa annaguna waxaan u baahannahay baahiyaha badan in xildhibaanku uu wax nagala qabto 6,000 oo cod waa nalaga helayaa 6,000 oo cod inay ka badan tahay mooyaane kama yara codka nalaga helayaa codkaana anagu waanu isgaarsiinay ninkii wax noo qabanayo baanu siinayna walaakin reer hebela ma rabno waa qofkii wax noo qabanaya waxaa jiray la soo yaacay doorashadii hore iskarabooyin yaroo ciida oo halka wadada meesha bartakeeda noogu shubay oo markay laba mid noogu shubay deedna iska laabtay codkiina naga heleen oo waxba dambe aan noo qaban musharax injineer cabdirasaaq maxamed faarax cabdi wiiwa ayaa dhankiisa la hadlay bulshada ku nool xaafadda Digaale isagoo u ballan qaaday hadii uu ku guuleysto doorashada golaha deegaanka gaar ahaan xilka meeyarnimo ee caasimadda Hargeysa in uu dhisi doono wadada isku xidha xaafadda Digaale iyo degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa halkan waxaan u imid maaham inaan idinkoo cod u nido wadiisto laakiin waxaan u imid inaan wixii aan qabanayna idin sheego waxaan hore u qabtayna idin sheego markii ugu horeysay aan Digaale imaado ma aha Digaale waan imaadaa horena waan u imid aniga lafkeygu dhul baan halkan ku leeyahay idinkama fogi wadadan muhiimka ah ka timaada Maxamed Mooge ee Digaale soo gashay wadada Siirooga ka timaada ee halkan timaada taarka dhinac marta ee mas'alaha ka timaada horta saddexdaasiba qorshaha ay igu jireen kii wax ka qaban lahaa inaan noqdo hadii Ilaahay igu soo saaro